kulan wacan daawada meel walba aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadana kala qiyaarteenan tusmada filmada ku taxan meel walba ay joogaan waxaan la wadaagnaa maxaa maanta laga qoraarmaha Bollywoodka kuwaas oo wararkii ugu dambeeyay waan sidii karna xiiso leeyihiin oo daawadaashina halkaan ku taxan way ka heli karaan haddaad warbixinadan ka heshaan la wadaaga asxaabtiina waad ku maasantiin allaaba si aad muuqaaladan aad u daawataan waad noo dhiirigelisaan hadda muuqaalkan ay waxaan ku eegi doonaa xidiga ku soo caanbaxay filimka Aashiqi kaas oo la daawado 1990 ee ninka lagu magacaabo Rahul Roy ayaa waxa uu sheegay in uu halgan dheer oo mari doono xidiga Kartik Aaryan inuu ka run sheego doorka filimka Aashiqi 3 kadib guusha filimka Bulbulanya 2 Bollywood actor Kartik Aaryan ayaa haatan waxa filmo badan liiska ugu jira kuwaas oo dhawaan la daawan doono dhawaan ay ahayd markii lagu dhawaaqay inuu ka soo muuqan doono filimka Aashiqi 3 kaas oo director-ka Anurag Basu hasaatee haatan ayaa Rahul Roy waxa uu ka hadlay in Kartik Aaryan in lagu dhiibo taxanaha filimka Aashiqi 3 markaan dib u eegno Rahul ayaa waxa uu yahay actor-kii ku soo caanbaxay filimka Aashiqi kaas oo la daawado 1990 wuxuuna kula soo caanbaxay tirshada kale Anu Agrawal filimkaas ayaa waxa director-ka Mahesh Bhatt waxaan filimkaas uu yahay mid dadka filmada ka falceliyaan ay amaaneen sidoo kalena filimku wuxuu yahay film box office-ka guul weyn ka gaaray haatan ayaa actor-ka waxa uu ku andacoonayaa in filimkaas aan dib loo sameyn karin ama sheekadiisa aan waxba laga bedeli karin xilli uu wareys uu siiyay Benga Villa Rahul Roy waxa uu sheegay in filmmakerayaasha ama film sameeyaasha sidoo ay ku dhaafaan filimka Aashiqi wuxuuna sheegay in qaybta saddexaadna ay sheeko classic ay u raadiyaan sidoo kale waxa uu sheegay in qaabka loo dhigayo filimka ama filimkaasi uu yahay mid hal jiro ilaa haatan sidoo kalena ku saabsan sheeko waaqici ah kaas oo ay daawadayaasha haatan jir ama maanta jira ay ka heli karaan wuxuuna uu sheegay taas inuusan wax shaki ah kaga jirinba wuxuuna sidoo kale uu sheegay in xidiga Kartik Aaryan uu halgan dheer u gali doono in doorkaasi uu ka run sheego Rahul Roy ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Kartik Aaryan uu yahay jiilaa dhalinyaro oo aad u fiican sidoo kale waxa uu sheegay in alaab uu yaqaano sidoo loo xisho filimada sheekooyinka fiican leh wuxuu intaas sii raacay inuusan wali la hadlin hasaatee mustaqbalka dhow uu rajeynayo inuu xidigaas uu la hadlo box office-ka qaab marka loo fiiriyo ayaa sidoo kale wuxuu Kartik Aaryan uu yahay ayuu sheegay mid guul weyn ka gaaray waxaan sidoo kale u rajeynayaa guul fiican sidoo kale inuu halkiisa uu ka sii ambaqaado in filmadaasi ee box office-ka ay guul ay ka sameeyaan markaan dib ugu laabno September Kartik Aaryan ayaa Instagram-kiisa waxa uu soo dhigay kaartada filimka Aashiqi 3 kaas oo xidigaasi loo dhiibay waxaana sidoo kale uu soo raaciyay inuu kan uu yahay mid qulubta dadka taaban doonaba waxaana sidoo kale uu raaciyay inuu yahay markiisa ugu horeyso oo la shaqeeyo director Anurag Basu si kastaba filimkaas ayaa ilaa haatan waxaa la soo bandhignaa tirishada filimkaas la hogaamin doonta xidiga lagu magacaabo Kartik Aaryan hasaatee filimka waxaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo in filimkaasi la soo bandhigi doono hasaatee warar horaxan waxa jira in xidigta filimada musalsalaadka jisay ee Jennifer Wilkinson in filimkaasi lagu soo dari doono sidoo kale warar kale waxa ay qorayeen in Sharada Kapoor lagu soo celin doono hasaatee ilaa haatan ayaa war rasmi ah arrintaasi ka soo bixin filimkan ayaa waxa lagu wadaa dabeeqada sanada soo socoto in la daawado filimkan ayaa qaybihiisa koowaad iyo kuwiisa labaadba ay noqdeen filmo sheek ahaan iyo sidoo kale ganacsi ahaanba guuleysteen iyagoo sidoo kale atoorooyin filmada ku cusub badan lagu soo diro amaba kuwa weli u halgamay in magac ka sameeyaan gudaha Hindiyaba intaan ku soo xirnaa daawade wararka maanta laga qoro Bollywoodka kuwaas oo aan sidii karna xiiso weelahaayeen daawadayaashin halkan ku taxan wala wadaagi kartaan haddii aad ka heshaan warbixinadan la wadaaga asxaabtiina waad ku maasantiin alaaba si aad muuqaaladan aad u daawataan